ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 29aad waa qof walba xaqiisa ayaan siinaa. Bar ilmahaaga in islaamku uu yahay diin na amraysa in aan xaqa Ilaahay iyo ka dadka kaleba aan dhowrno. Tusaale ahaan Ilaahay xaq buu nagu leeyahay oo ah inaan caabudno, nafteenuna xaq bay nagu leedahay waana daryeelkeeda. dadka kalena xaq bay nagu leeyihiin waa u celinta xaqooga. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. qof walba xaqiisa ayaan siinaa. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.